Assalaamu calaykum saaxiibayaal kulanti wacan oo wanaagsan meel walbo aad joogtaan kani waa tiktok-geygii kale iyo laab asxaab badan ayaa waxay soo weydiisay qaabka tiktok-ga magaca loogu qoran karo tusaale ahaan aniga hadda kal iyo laab ayaa iigu qoran sawirkayga hoostiisana waxaa ku qoran some photography center ayaa ku qoran dad badan ayaa i weydiiyey waxay leeyihiin username lambar aan jirin ku qoran marka sideen magac ugu qorana ayay leeyihiin marka sida aad ugu qoran lahayd waxaa weeyaan meeshan edit profile ay ku qoran tahay ayaa tagaysaa marka meeshan aad timaado halkan kal ilaab ayaa ku qoran meeshaas aad tirtiraysaa waxaad leedahay magaca aad u baahan tahay ayaad ku qoraysaa tusaale ahaan aniga waxaan ku qoranayaa kal iyo laab meeshii l aheedan b ku daraya laba a aan ka dhiganaya ama laba a ayaan ka dhiganayaa macnaha ma rabo magacayga inaan loose gareeyo ama aan dhumiyo ma rabo marka dee sidaas ayaan sameynayaa oo safe ayaan leeyahay wuu isbedelay waa ujeediin kal iyo laab ayaa ku qoran haddaan ku celinayaa mar labaad magacaasna waan ka bedelayaa saa idinka u fahantiin edit ayaad taabanaysaa halkan ayaad imaanaysaa waxaan ku qoraynaa markaan mama rabaa mama oo kalan ku qorana safe aan leeyahay waa kaade mama ku qoran ood u jeedtiin I love my mom so that's why aniga aan uga dhahayo mama halkaasaad ku qoraysaa marka waad fahanteen ayaan filayaa dabcan marka safe ayaa leedahay magacaagii waa kana waad bedelatay sidaa iyo nabadgelyo wixii su-aalaana diyaar baan u nahay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh halkani waa Somali One Show waxaan idin leenahay subscribe-ta like-ta commentiga ayaan laga iloobin wixii su-aalana hoos inaga soo weydiiya intaan dib dambe u kulmi doono mar labaad iyo mar saddexaad wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh